wadabanayntan laga sameeyay deegaanka Toon ayaa waxa ka soo qayb galay maayar ku-xigeenka degmada Salaxley mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda hawlaha guud ganacsato iyo odayaasha deegaanka Toon iyadoo wadada halkaasi laga baneeyay dhererkeedu uu ahaa 1 kiiloomitir oo dhanka galbeed ee deegaanka Toona iyadoo door muhiim ah ka qaadan doonta horumarka deegaanka Toon maayar ku-xigeenka degmada Salaxley Maxamed Cabdi Haariye iyo sidoo kale injineer Cabdiraxmaan Cali Aadan oo ka socday wasaaradda hawlaha guud ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxaanu ka soo qayb galnay banayn wado ay dhisanayeen deegaanka Toon wadadaas oo ay ku dhisanayeen isku tashi midnimo iyo wada jir iyo qamcays haysta iyagoo doonaya inay ka fuliyaan halkan ay joogno wadadan ay geynayaan dhakhtar iyo hotel maxay ay tahay deegaanka bilicdiisa iyo dhaqaalihiisa sare soo qaada maxay hay'adaha anaguna dawlad hoos ahaan waxaanu runtii diyaar u nahay isla imikana aan maartay kala qayb qaadanay qalabkayagii oo taymaka cagaftii aan u keenay shaqaynayso wadadan oo ah wado runtii maxaan ku raadin ku soo kordhin doonta bilic iyo dhaqaalaba soo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa Injineer Cabdiraxmaan Cali Aadan oo ka socda hawlaha guud oo runtii anagu dawlad hoos ahaan aan u yeedhnay soo noola hubiyo wadada iyo halka ku dhacaysay master plan ahaanba waxaan maanta halkan ka daahfuraynaa wado ay iska kaashanayaan degmada Salaxley iyo magaalada ama tuulada Toon community runaantii anagu dan hawlo guud ahaan ahay waxa aanu kala qayb galeynaa inaan technical ahaan ka caawino iyo halka ugu haboon ay wadadu marayso anaga oo ah aniga iyo kormeeraha kayse geesta kale ganacsada Xamse Abiib iyo xubno kamid ah odayaasha deegaanka Toon ayaa halkaasi ka hadlay waxaana u mahad celiyeen maamulka degmada Salaxley iyagoo sheegay in wadabanayntaasi ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonto horumarka soo kordhaya ee deegaanka Toon runtii wadadani waa wado ay ku lagu aasaasay ama lagu dhisay community isu tagay ma wada gaar ah ama bareefada oo meel gaar ah loo dhisay waa wada community-ga loo dhisayo runtiina community-ga wax weyn ku soo kordhin doonta haday tahay bilic iyo haday tahay dhaqaale bilic iyo dhaqaalena waxa ugu horeeya wado marka meesha wada jirin wax weeyaan wax kastaaba way xanibnayaan marka waxa weeyaan waa arin aad u ballaaran waxaan u mahad celinayaa runtii mahad ballaaran u soo jeedinayaa degmada Salaxley halkan waxaan wado weyn oo tagaysa dhakhtar halka laga dhisayo iyo hodol weyn oo laga dhisayo ayaa maanta halkan laga dhagax dhigay iyadoo ay joogan gudoomiye ku-xigeenka degmada Salaxley qayb ka socota hawlaha guud iyo dad badan oo kaleba halkan waxaanu aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa horta intii wadada abaabushay inay halkan marto ee soo abaabushay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa deegaanka kamid ahayd waana ilaahay mahadi maanta oo xaaba la dhixisa ama tuulaha dhexdiisii laga sameeyo laamiyaha waya iyo hudheelo waaweyn oo wax ilaahay lagu mahadiyo